بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وبعد walaalaha soomaaliyeed meel walba waad joogtaan allah idin dhowro dhulkeena hooyo bersamaadka allah ku soo celiyo amnigiisa amaankiisana allah sugo ummadda soomaaliyeed culayska allah ka qaado albaabada khayrka allah u furo walaalayaal waa xalaqooyinkeeni taxanaha ahaa dhaxalkii rasuulkeena suuban sala allahu calayhi wasalam mar walba aad maqashaan rasuulka waa inaad ku sallisaan si ilaahay culayska idinkaga qaado allahuma salli wasalim wazid wabaarik caleyh walaalayaal waa nairobi iyo xalaqadii tobanaad xalaqadii tobanaad waa asalaa salaada iyo faa'iidadeeda adduunka walaalayaal inta badan waxaa nala weydiiyaa oo culimada aada loo weydiiyaa waa salaada subax ma tukan kari salaada subax waa nagu culus tahay maxaan samaynaa inta kale waa tukanaa laakiin subxii baan isku kari la'nahay laakiin waxaan rabaa madrasatu muxamed sala allahu calayhi wasalam maanta haddii aad si qalbiga u dhegaysatid dib dambe waa xalaqadan tobanaad ee dhaxalkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo xalaqada kale ee 11 ee habeen dambe haddii aad si qalbiga u dhegaysataan dib dambe salaad subax inaysan idinka tegaynin inaad runtii usoo kacaysaan weliba saacado ka hor inaad usoo kacaysaan walaalayaal salaada sidaad ogsoon tihiin waa rukni kamida min arkaan alislaam shanta rukni ee ay diintu ku taagan tahay waa midda keliya rukniga keliya ee ilaahay uu diiday subxaanah rasuulku adduunka jooga in lagu farad yeelo qalbigiisi baa la dhaqay sidai xalay aynu soo aragnay waa la nadiifiyey mar alliyo markii la nadiifiyo loo tirtiray la dhaqay xikmad iyo iimaan laga buuxiyaa la qaaday yaa qaadaya jibraa'iil baa qaadaya jibriil calayhi wacalaa nabiyina salatu salaam markaasaa la qaadayaa 7 sama ka sara la geynayaa jibriil baa ka haraya ilaahay baa uu u tegayaa rasuulka sala allahu alay wasalam 5 salaadood baa loo soo dhiibayaa waa hadiyad qaali ah waa hadiyad qaali ahe garo lagaaga keenay min fawqi 7 samaawaat ma aha hadiyad yar laptop iphone yar ma aha wax yaroo silsilad dahaba oo america laga keenay ama dubai laga keenay ma aha taasaan laabta iyo gollanka aan ku haysanaa ma ilowna qofka noo keena hadiyadaas ka waran hadiyad lagaaga keenay min fawqi 7 samaawaat 7 sama ka kor oo uu kuu soo dhiibay allah khaaliqaagii oo lagugu soo dhiibay khayru khalqi illah ka warama ma wax la ilaawaa ma wax la ilaa soo wax laabta iyo gollanka la gashta maaha soo wax walba soo wax maaha lagu ictikaafo soo maaha oo la dul joogsado daa'iman la kaalmaysto soo maaha ya ayuha aladiina aamanuu istaciinuu biالصabri wالsalaa ka salaad iyo kaalmaysta sabir wax walbo adduunka dhib ah salaad kaalmaysta sababtoo ah waa hadiyad qaali ah oo laynooga keenay korkaa yaynaan dayicin yaani kaa tegin hal salaad ah hadday ku dhaafto camalkaagiibaa burburaya haddii si kas ah ay ku dhaafto salaadu waa cimaad diin may maqashaa adiga gabadhaadan may maqashaa adiga adaan kula hadlayaa ma maqashaa waxa dhahaya ma aha madrasatu muxamed ma aha kenyaawi waa xabiibkaaga ku salli xabiibkaaga xabiibku dhexdeenuu ku nool yahay qalbiyadeenuu ku nool yahay wax ina faraya waa isaga wax inaga reebaya waa isaga sala allahu calayhi wasalam u garo sidaa waxaan sheegaya ma aha wax sanooyin ka hor 100 sano ka hor wax la yiri oo baaba-ay ma aha waa wax nool maantuu dhahaya xabiibka sala allahu calayhi wasalam salaadu waa cimaad diin waa laf dhabarkii diintu ku taagnayd waa rukniga ugu horeeya bacda shahaadateyn asalaa cimaad diin salaada aad arkaysaan maadaama ilaahay uu leeyahay wakhuliqa alinsaanu daciifan insaanka daciif baa laga abuuray wax taag daran ayaynu nahay tabar ma lihin xeelad iyo quwad midna ma lihin fuqaraynu nahay ilaahay baynu u baahan nahay
ayaa waxaa lagaa yidhi hadiyadda qiimigeeda eeg waa silatu bayna alcabdi waalrab. waa xiriirka addoonkan faqiirka ah, daciifka, taagta daran, baahan iyo ilaaha haniga ah, qawiga ah, ya ilaaha nool noloshiisu kaamilka tahay. waxaad xiriir la yeelanaysaa markaad 5 waqti ilaalisid, ya waxaad xiriir la yeelanaysaa allaha awooda badan. waad aragtay adduunkana marka madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, saraakiil sare, ya baarlamaan, qof madax ah awood leh, marka aad la leedahay xiriir, ya waxaa le war hebel looma dhawaan kara, hebel khatar waayo, hebel ayuu xiriir la leeyahay, ayuu u dhow yahay, ayuu la dhashay, halkaasuu ku tiirsan yahay. waa insaan wada ducafo ah. maxaad u malaysaa insaan mu'min ah, iimaan leh, qawi ah, oo ilaahay maaragtaaye ka qaadanaya awoodda. asilatu bayna alcabdi waalrab, xiriir mar walboo dhibaato ku qabsato waad wacanaysaa ilaahay, waad wacanaysaa, duhurkii baad wacanaysaa, casarkii baad wacanaysaa, habeenkii maqribkii baad wacanaysaa, cishihii, waxaad kala wacanaysaa salaada subax ayaad wacanaysaa. eeg ilahay baan ku dhaariyay 5 jeer ayaad ilaahay wacaysaa. telefoonada 5 waqti baad haysataa, saad u dayacaysaa. marka walaalayaal, salaada aad arkaysaan ee cimaadu diinka ah, ee ah haddana maaragtay xiriirka ilaahay iyo addoommadiisa udhaxeeya, waa axabu alacmaali ila allah. yah ficilada aad samaynaysid, aqwaasha ku dhex jira qiraa'aadka ah, tasaabiixda, taamiida ah, oo maaragtay istikfaarta, salliga ah, kulligood waxaasoo dhan waa axabu alacmaali ila allah. camal ilaahay uu ka jecel yahay ilaahay ma soo dejin. xadiiskii qudsiga waa kii uu ahaa, addoommadayda kuma aanan farad yeelin wax ka wanaagsan oo aan ku jeclaado waxyaabaha aan ku farad yeelay. yani waxyaabaha ugu waaweyn ee ugu horeeya ee ilaahay addoommadiisa uu ku jeclaado waa waxyaabaha uu ku farad yeelay. faraa-ishana salaada ugu horeysa, ugu qaalisan faraa-isha oo dhan, oo waxa ugu horeeya ilahay uu kugu jeclaanayo. axabu alacmaali ila llah. cabdullahi bin mascuud wuxuu ley waan weydiiyey rasuulka sal allahu alay wasalam, waxaan ku yidhi rasuul allah, ayu lcamali axabu ila allah. camalka ilaahay ugu jecel yahay. saxaabadu eeg ridwaan ullahi calayhim, miisadooda waxyaabahay dadka oo dhan uga saramareen oo aan loo gaaraynin, rasuulka ma aanay weydiinin sala allahu alayhi wasalam, ma aanay weydiinin wax wanaagsan. maxay weydiin jireen? wax walba waxa ka wanaagsan. maxaa wacay iyagaa wax walba ka wanaagsan. haddaad doonaysid marka inaad wax walba ka wanaagsanaatid, waa inaad shayba shaygu ka wanaagsan yahay aada weydiisaa culimada, oo aad samaysaa oo aad ku dadaashaa. ayu lcamali axabu ila allah. muxuu yihi rasulka sal ly slam? wuxuu yihi asalaatu calaa waqtiha. salaada oo lagu tukado waqtigeeda. ma ku tukataa waqtigeeda? mise intaa culimadaad intaa ku meeraysataa oo aad dhahdaa subixii waan shaqeeya, duhurkii waan shaqeeya, casarkii nalooma ogolay in aan ku tukano meesheena, salaadaha ma isku darnaa, salaadaha ma isu geyn karnaa, salaadaha ma hormarinaa iyadoon la gaarin, mise gadaalaan ka tukanaa. ya la, asalaatu calaa waqtiha waa wax ugu fadliga badan. ina salaata kanat cala lmu'miniina kitaaban mawquuta. mu'miniinta kitaab qoran bay ku tahay waqtiyadeeda leh salaada. laakiin dadka aan iimaanka lahayn, mu'miniinta ahayn, salaadii oon la gaarinay tukadaan, salaadii oo dhamaatay oo waqtigeeda la dhaafay tukadaan. marka ku dadaal, haddaad mu'min tahay, jooji su-aalaha, haddaad mu'min tahay salaada waqtigeeda tuko, siday kuu qabato u tuko. ilaahay ruksooyin fara badan, fudayd ayuu yeelay salaada. markii ay waqti meel fiican iyo ammaana aad tagtidna salaadaha sidii la rabay u tuko. waqtiga dhibaatadu jirtana sidii ilaahay kugu talagalay taas maaragtahay baro oo u tuko. eeg salaada walaalayaal waa axabu alacmaali ila allah. waa sila bayna alcabdi waalrab, xiriirka ilaahay iyo addoonkiisa. waa cimaad diin. haddana eeg waa waxa ugu horeeya oo jannada lagu galaayo. laa ilaha ila allah. wax aad dayacaysid ee aad leedahay salaadii subax waa kari la ahay, ya macnaheeda waxa weeyaan furihii jannada ma rabi adigoo dhahaya. asalaatu miftaaxu ljanna.
miftaaxu ljanna. hal salaada haddaad ka tegtid waad weyday furihii jannada. jannada waa la dhisay, laakiin ilaahay waxaas maa laa caynun ra'at walaa udunun samicat walaa khatara calaa qalbi bashar, nicmooyinka xuuralciinta webiyada waxaan la sheegaya isku qoofalan ilaahay adig kuma una samaynin. qofki isagaa samaysta adduunka intuu joogo. salaada subaxoo lasoo kaco ayuu ilaahay ugu sameeyaa, ayuu qofku ku samaystaa, duhurkiiu ku samaystaa oo waktiga lagu tukado, casarkiiyo jameecada lagu tukado, maqribka iyo cishaha lagu samaystaa. addoonka isaga maxaa lagu siiyey caafimaadka, maxaa lagu siiyey cimriga, maxaa adduunka lagu keenay. cibaadada la sheegaya waa maxay? ma culays lagu saarayaad mooday? maya ee inta lagu siiyey maadiyaadkii oo dhan baa lagu yiri war jannada dhiso. ku dhisi maayo aniga, war jannada dhiso, jannada dhiso, adduunkan ku dhiso. markaasaad intaad ilowday baad dhisaysaa xoolo adduunyo, dhisaysaa xaaba adduunyo, aada ururinaysaa. eeg war miftaaxa intaa laga qaataa asalaatu miftaaxu ljanna. jannada laguma tukado, halkana laga qaataa. hal salaada haddaad dhaaftid, si kasta aad u dhaaftid, furaha waa kaa maqan yahay, ogow lagu dhiibi maayo. furaha waxa bixiya waa alle, allaha loo tukanayo. waad jiiftaa, war ibliis yaanu ku mashquulinin. salaada furaha waa miftaaxu ljanna. waa kana rabiica ibni kacb alaslami radia allahu canhu ardaah, saaxiibkaa rasuulka, aad ba u jeclaa rasuulkiisa sala allahu alayhi wasalam. waa sida aniga iyo adiga looga baahan yahay inaan u jeclaana xabiibkeena sala allahu alay wasalam. wuxuu ku dhahayaa yaa rasuul allah, waxaan rabaa in aan noqdo ka jannada kula gelaya, rafiiqaaga jannadaan rabaa inaan noqdo. rasuulka waa aad buu runtii uu arrinkaa u weynaysanaya. markaasuu leeyahay yaa rabiica aw gayra dalik, wax weyn baad iweydiisatay, wax kale iweydiiso. iweydiiso xoolo adduunyo, iweydiiso waxyaabo kale, iweydiiso gabar qurux badan aan kuu guuriyo, iweydiiso. markaasuu leeyahay kaa un baan rabaa rasuul allow inaan jannada kula galo. maxaa wacay qalbi nadiifa ayuu leeyahay. qalbi nadiifa. adiga xoolaad weydiisan lahayd 100 neef oo geela, markaasi aakhiro dhan ay maaragtay kaa hoosaasin lahayd, soo ma way ku mashquulin lahaayeen. eeg qalbiga wanaagsan, eeg waxa uu doonayo, damiirka soo jeeda, eeg waxa uu doonayo. wuxuu leeyahay inaan jannada kula galaan rabaa, war wax kala sheego mayuu leeyahay, waa kaa taasaan doonaya. rasuulka markaasu wuxuu u dhiibayaa shaqadii, furihii wuxuu u tilmaamayaa jannada lagu furan lahaa. waa kuu dhahayo fa acinnii calaa nafsik bikahrati sujuud. sujuud igu caawi, marka igu caawi, salaada igu caawi. sujuud baa laga cabirayaa salaada qiimiga badan. sababta looga cabirayo waa rukniga, sujuuddu waa rukniga u qiimiga badan, u qaalisan salaada oo dhan aqwaasheeda iyo afcaasheeda. allah fa acinnii calaa nafsik bikahrati sujuud. maalinkaa laga bilaabo ma aanu seexanin rabiica. waa sida aniga adiga laynaga doonayo, ma una seexanin. maxaa wuxuu rabaa rabiica inuu jannada la galo moxamed sala allahu alayhi wasalam. sujuudda aad arkaysaan aynu ilowni walaalayaal, sujuudda aynu fududaysanay. eeg waa kan uu dhahayo rasuulkeena salawaatu llahi wasalaamu caleyh. waa korta waa kuu jeclaa daa'iman intuu soo kaco, waagii saxaabadu yaraayeen, 2, 3, 4 ruux ay ahaayeen, kacbadu ku sujuudi jiray. gaalada qureysheed oo maka dhan haystay intay u yimaadaan koofiyo weyntoodii ayaa waxay damcayaan inay u diidaan. rasuulkana furahaasuu rabaa inuu furto jannada, inuu mar walba jannada ku jiru doonaya. kuwana waa u diidayaan. ilaahay baa dardaaran siinaya oo dhahaya laa tudichu wasjud waqtarib. ha ogolaanin in sujuudda lagu diido, in salaada lagaa hor istaago, wax uun caqabad ah in ay salaada kuu diido marnaba ha yeelin. laa tudichu wasjud, sujuud baa la yihi, waqtarib, dhawow oo ilaahay u dhawow, oo jannadii u dhawow, dembi dhaaf u dhawow, u dhawow axwaashaado ilaahay maaragtaa kuu yeelo, kuu fududeeyo, danahaadoo lagu oofiyo, dhawow ayaa la leeyahay.
maxaa wacay waa ku dhahay xabiibkeena sala allahu alayhi wasalam aqrabu ma yakunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid fa akthir ducaa. waxa ugu dhow, goobta ugu dhow addoonka ilaahiisa ugu dhow yahay waa sujuudda weeyaan. ma aha qiraa'ada, ma aha rukuucda, ma aha ictidaalka, ma aha tashahudka, waa sujuudda weeyaan. ha ee ducada badiya ayaa la leeyahay. laakiin ibliiska ma wuxuu doonayaa inaa ilaahay u dhowaatid? kaagaa salaada subax ka calaacalaya, gabadhaadaa salaada subax ka calaacalaysa, ma kici kari dhahaysa, inta kale waa tukadaa. waxaad ogaataa waxa kuu diidaya in ilaahay aad u dhowaatid, arrinkaagii u dhowaatid, waa ibliis. waa ibliis. ibliis ha ka yeelin marka. ha addoommada ilaahay, dadka iimaanka leh, ilaahay jecel yahay, akhyaarta ah, qalbiyada wanaagsan, waa kuwa ibliiska cadow ka dhigta. cadow weeya cadow ka yeesha, cadow weeya cadow ka yeesha ayaa la leeyahay. marka inaad cadow ka dhigitid ba adiga la rabaa. laa tutichu wasjud waqtarib. wax salaad kuu diidaa waa inaanu jirin. hurdo waa inaanay kuu diidi karin salaadaada, waa inaanay maaragtay sheeko kuu diidi karin, waa in lagwi iyo musalsalaad aanay kuu diidi karin. salaada wax kaa hor istaagi kara, xataa eeg waalidkaabaanan kuu diidi karin salaada faradka ah abadan. cid ilaahay kasoo harta oo kuu diidi karta malaha. u dhawow ilaahay, sujuud baa la yiri, u dhawow ilaahay. walaalayaal, sujuudda aad arkaysaa iyo salaada waa sifada dadka mu'miniinta ah weeyaan. ha ka dhex bixin mu'miniinta, ha ka dhex bixin. siimaahum fi marka hore u dhahay tasaa inoo dambayse taraahum rukacan sujadan yabtaguuna fadla min allahi wa ridwaana. eeg mar walbo aad mu'miniinta aragtid, taraahum waxaad ku arkaysaa rukacan iyagoo sujuudaya, sujada iyagoo rukuucayaan leh, sujadan iyagoo sujuudaya. oo maxay rabaan? mar walba maxay la rukuucsan yihiin dadkan? mar walba maxay u sujuudsan yihiin? maxay doonayaan? yayse ka doonayaan? maxay doonayaan? yayse ka doonayaan? maxay doonayaan? ma raashin bay doonayaan? ma caafimaad bay doonayaan? ma sponsori in la qaaday doonayaan? ma waxay ka doonayaan america iyo Europa iyo reer galbeedka, mise UN bay ka doonayaan? eeg yabtaguuna, waxay raadinayaan oo jirinayaan fadlan min allahi wa ridwaana. ya dheeraad, caafimaadkooda ay haystaan in loo badiyo, nicmada ay haystaan in loo badiyo, awlaad ay haystaan in loo badiyo, sabirka in loo badiyo, wanaagga in loo badiyo, sacaadada iyo farxadda in loo badiyo, khayrka in loo badiyo, fadlan min allah, kadibna wa ridwaanan, ilaahay inuu ka raali noqdo. waxaasoo dhan bay salaadu leedahay. salaada intaasoo dhan leh ya ayaad leedahay, waa ka seexdaa habeenkii. soo ma ogid labada salaadood ee ku culus munaafiqiinta, oo weliba la garanayo qofkii ka taga inuu munaafiq maxdiya uu yahay, waa cishaa iyo subax. adiguna waxaa leedahay subxi baan ka seexdaa. subxi baan ka seexdaa markaad leedahay, ilaahay baan kugu dhaariyey maxaad qabataa? ilaa cishii baad seexatay. cishii waa 8 la tukadaa. salaada subaxna waa 5 meelahaas weeyaan. intee saacad ayaa u dhaxaysa? maxaad qabataa? ma jiiftaa mise waa soo jeedaa? waad soo jeedaysaa, musalsalaad baad ku dhafraysaa, sheekaad ku dhafraysaa, lagwi iyo waxaad ku dhafraysaa waxaan loo joogin oo ilaahay ka caraysiiya. marka salaadu soo dhowdahay ayuu ibliisku seexinayaa. garo markaa wuxuu doonayaa inaadan sujuudin, wuxuu doonayaa inaadan ilaahay u dhowaanin. ha ka yeelin marnaba. cadowgiina wey ibliis cadow ka yeeshaa. salaada yaani marnaba idinka tegin, waktigeeda ku tukada salaada. walaalayaal, ilaahay waxaan ka baryayaa salaada inuu ilaahay inooga yeelo runtii kuwa ilaahay ugu dhowaada, kuwa salaada ilaaliya waktigeeda ilaaliya, daa'iman ilaahay u sujuuda, daa'iman ilaahay u dhowaada, ducada badiya. allah inaga yeelo. salaada allah nagu xifdiyo, salaada allah nagu xifdiyo. salaada ina salaata tanhaa can alfaxshaai walmunkar. salaada munkarka iyo fuxshiga iyo xumida oo dhan bay qofka ka reebtaa. haddii waxaasoo dhan ay kaa reebto, bimacnaa qalbigaagay ilaalinaysaa. maxaa wacay fuxshiga iyo munkarka waa waxa qalbiyada madoobeeye weeyaan. maxaa ballanteena ah? madrasatu maxamed caawa waxay la qaylinaysay sidaynu salaada u ilaalin lahayn. maanta kadib su-aalahaas salaada ku saabsan aan joojino.
salaada ballanteenu waa salaada iyo waktigeeda iyo jamaacada. astawdicukum allah aladi laa tadiicu wadaa'icuhu. wasalaamu calaykum waraxmat ullah. intaasba ku makanin lahayd, ku siin lahayd, ku fududayn lahayd buu markuu idin soo saaray idinku qalabeeyey. haddana wuxuu idin yeelay maqal, wuxuu idin yeelay aragti, indhaad wax ku aragtaan, dhega aad wax ku maqashaan. dhegaha waxa ay arkaan iyo dheguhu waxay maqlaan iyo indhuhu waxay arkaan. waxaa loo baahan yahay khasnadii la gelin lahaa. qalbigu ilaahay idin yeelay, bakhaarkaa weyn ayuu ilaahay idiin sameeyey oo halkaasee wax walboo ishu aragto uu gelayaa, wax walboo dhegtu maqasho uu gelayaa. nimcadaasoo idil oo aynan karneen ilaahay wuxuu leeyahay lacalakum tashkuruun, in aad ku shukrisaan, bimacnaa aad garataan qiimiga, aad garataan inuu ilaahay idin siiyey. markaad u aqoonsataanna aad dhahdaan alxamdu lilah. walaalayaal, ilaahay markuu intaa inoo yeelay dabadeed ilaahay wuxuu leeyahay waktiguu markana siiyey. waktiga oben ma aha, la socda dhalinyaro. cimrigan ma furna, waktigan wakti furan oo weligii jiraaya ma aha. waktigu waa xadidan yahay. allahu aladii khalaqakum min dacfin uma jacala min bacdi dacfin quwa uma jacala min bacdi quwatin dacfan wa shayba. waktigeena inuu xadidan yahay waxaa ka horeeya dhallinyaronimadan wakti daciif aanu nahay, waxaa ka dambeeya wakti daciif aanu nahay. waktigeenu waa xadidan yahay. 20 sane ugu horeeya ilaahay wuxuu idinka abuuray dacfi, wuxuu idinka abuuray taagdari. wax ma qabsan kartaa inta aad yartihiin. waxaad u baahan tihiin waalid, baad u baahan tihiin, dad idinkaabaad u baahan tihiin, in lidin xoojiyaad u baahan tihiin, xagga caqliga iyo xagga jirkaba. allahu ladii khalaqakum min dacfin wa ilaa 20 sano, 20 ilaa 40 sana waa inta la xoogan yahay. 40 sano wax ka dambeeyana qofkii wuu soo ururayaa, qofkii wuu soo daciifayaa, qofkii dhegihii wax ma ka maqli karo, indhihii aragtidu way soo laabanayaan, qalbigii wuu yaraanayaa, xubnihii waa soo daciifayaan, waa godanayaa. waktigeena marka waa maxay? haddii in horen ay tahay dacfi, in dambena dacfi ay tahay, waktigeenu waa 20 sana ee u dhaxaysa 20 ilaa 40 sana. 40ka waxyarun baa noo raacaya. waktigaa isaga ah ayaa marka ilaahay rasuulku waatan uu leeyahay maalinka qiyaamaha layska xisaabinayaa can cumurihi fi ma afnaah wa can shabaabihi fi ma ablaah. qofna cagihiisa kama qaadayo saaxada qiyaamaha. idinku dee waxaad maqashaan saaxad qiyaama, waxaad u malaysaan yani hool halkaan oo la imanayo, miisaan halkaan yaalo oo laisxisaabinayo. maalinkaas maalin aad u adag weeyaan. rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi, waa maalin qof walba uu u baahanayo xasanaad in uu helo. qof walba uu u baahanayo. waa maalin dhalinyaro, maalinka qadarkiisa qur-aanku uu ku tilmaamay 50,000 sana, 50,000 oo sano. saaxada la joogaa waa saaxo aada u dhib badan. midna ogaada, adduunka wax walboo lagu sheego oo aakhiro lidinkaga sheego way ka duwan tahay. sidaa ha u suuraysanina. aakhiro wax walboo jira, cadaab iyo naciimba waa waxaanay dheguhu maqlin, indhuhu arkin, qalbi bani aadan aanu ku soo dhicin, dhan walbo ay ahaato. 50,000 sana ma aha 50,000 maanta dee adduunka aanu arkeena, waa 50,000 oo sano oo qiyaamo ah. saaxadu waa bannaan tahay, buura ma leh, geeda ma leh, bahola ma leh, meel lagu dhunto ma leh. saaxadu waa bannaan tahay. waxa weeyaan saaxada iyada ah waxaa ku kulmaya jinnigii iyo insigii iyo bahaa-imtii, xasharaadkii, cayaya, ay shay ilaahay uu abuuray oo dhan baa halkaa imanaya. dadku waa wada qaqaawan yihiin maalinkaa iyada ah. lismana eegayo, qof walbaa camalkiisii adduunka uu samaynayey
ayay u gaaraysaa qoraxdu, yani dhididka qoraxdu ay keenaysa. qoraxda waxaa laysu keenayaa halkaa, yani anaga halkaasaan ku tilmaana, laakiin saxaabiga xadiiska warinaya wuxuu leeyahay rasuulka miil ayaa laysu keenayaa buu leeyahay. wallahi ma garanay buu leeyahay, waa ninka rasuulka afkiisa ka maqlay sala allahu calayhi wasalam. miilka waxa uu rasuulka uga jeeday ma aqaan, ma miilkii masaafadii dhulka ahaydba, mise waa miilka yare haweenku ku indhakuushaan. fiiri khilaafku wuxuu ka taagan yahay, ma miilkii lugaha mitirka, mise waa miilkii yaraa ee haweenku ku indhakuulanayeen. waa qoraxdan, qoraxduna ma ah qoraxda adduunka, waa qoraxda aakhiree la socda. halkaasaa laysu keenayaa. dhididka wuxuu dadku uga daadanayaa maalinka isaga ah, wuxuu uga daadanayaa qof walba adduunka markii uu joogay sidii camalkiisu ahaa. qaar baa gomadaha ayuu u gaarayaa dhididka, qaar jilbaha, qaar xudunta, qaar halkaasuu u gaarayaa. qaar baa rasuulku wuxuu leeyahay dhaguhu u gaarayaa, halkaas wuu xakamaynayaa. yaan la fududaysanin dhalinyaro maalinka ah. wallahi waa maalin aad iyo aad rahiib u ah. waa maalin marka laga sheekaynaya sheekadiisi iyo aayadihii ka sheekaynaya rasuulkeena suuban, timihiisu ay ceraysteen weeyaan. qofka caqliga ilaahay wuxuu nagu siiyey oo qalbigu noogu geliyey waxa weeyaan in aan ku tadabburno. dhibka annagana haystaa waxa weeyaan qur-aanka albaqara kasoo bilaabeynaa berbinaasaan geynaynaa, wax uu naga bedelaya haba yaraatee malaha. shay walbo culimadu tiraahdo saxiix ah waa in si serious oo dhaba aad u qaadataan. maalinkaa isaga ah wax badbaadaya waa yar yahay. waa maalinka nabiyullaahi aadam uu ugu horeeyo ilaa nabiyullaahi ciisa calayhim assalaam. qof walba uu leeyahay nafsii nafsii, anigu wax ma qaban karahayo. yaa qabanaya? rasuulkeena suuban. anaa lii ayuu leeyahay. markaasuu noo andacoonaya oo uu leeyahay ummatii ummatii. waktigaan aad arkaysaan maalinkaa isaga ah, qofna yani waktigaa la jooga ciriiriga ay zaxmada ah, qofna halkaa kama tegayo, lugihiisa kama qaadayo ilaa jawaabaha su-aalahan afarta ah uu bixiyo. diyaar mootiin dhalinyaro? 20 sano, 30 sano, 40 sano, 60 sano oo adduunka aad ku noolayd, cimrigan adigu malihid, ilaahay baa ku siiyey. lacagaha aad haysatid iyo wax walboo qiimiila oo agtaada yaallaa haddii aad bixisid, saacad iska dhaafi daqiiqad kuma iibsan karaysid. milyaneerada adduunkaa markay sakaraadayaan oo nafsada ka baxaysa, xoolahoodao dhan isku furan lahaa, heli maysaan. daqiiqad kamida wallahi inaydan helaynin. ilaahayna daqiiqad iska dhaafay 70 sano, 80 ilaa 100 buu bilaash kuu siiyey. caqliga ilaahay wuxuu noogu yeelay lacalakum tashkuruun, inaad fiirisaan, dib isugu laabo. xubnahan aad arkaysaan ee ilaahay idin siiyey, caafimaadkan ilaahay idin siiyey, caqliga aan xoolaha uga duwannahay ilaahay ina siiyey, iyo weliba waktigaan dherarka badana ilaahayna siiyey. maxaa loo baahan yahay? inaan ku cibaadaysano. qalbigiinuna yaanu kusoo degdegin marnaba. cibaado marka la sheego duub in la xirto, ma aragtaa khamiiskii masaajidka un la fadhiyo oo la kuududo, marnaba yaani qalbigiinu kusoo degin. diinteena sidaa waa ka weyn tahay. diinteena adduunka iyo aakhiro intuuba waa jamcinaysaa. addunyaa masracatun lilaakhira. tan inaad beerataa lagaa rabaa. inaad ka seexatid ma aha. masaajidku inaad fadhidid ma aha. gabadha gurigeeda inay joogto ma aha. in la soo baxo oo la shaqaysto, cilmi la barto, adduunku waxaa ka dhacaya la eego, la iscaawiyo. in badan adduunkan caafimaad inaad abuuratid baa loo baahan yahay. walaalayaal, waktigan dhalinyaradeenna inta badan inta aan arkay waxa weeyaan iyagoo faraxsan ayay bixiyaan shaygan qiimiga badan oo daqiiqadiisu ka qaalisan tahay adduunka iyo waxa saaran. runtii wallaahi anoonan mujaamalaynaynin, annagoo faraxsan oo weliba aanan ogeyn ayaan bixinaa biduuni muqaabil. laakiin ma ogsoonin in daqiiqad walboo aan bixino annagoo faraxsan oo ay weliba aynaan ogeyn ay noo sii dhaweynayso maxay? qabrigii iyo aakhiro. keenay ogsoon maanta fadhigaan aan fadhino, inta saacaddii aynu soo galnay ilaa ay saacadda aan ka baxayna, daqiiqad walba inaan usii dhawaanayna qabrigiiyaa ogsoon. hadduu ogsoon yahay qofkan daqiiqadan uu leeyahay waa soo beerdaraynaa, meelahaan soo aariyeysana, meelahaasaan kusoo gaxweynaa, banaankaasaan fariisanaya uu leeyahay, hadduu ogsoon yahay intaas cimrigiisi iyo jirkiisi inay ka go-an tahay miyuu tegi lahaa? maya, ma ogsoona.
teeda kale rasuulku wuxuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayha ilaawina ninka odaga ahaa yaan ilaawin ya malakulmout yaan ilaawin isagu nama halmaansana annaga yaynaan halmaamin waxaan la yaabay qof la raadsanaya oo lagu daba jiro oo meeshuu cag dhigaba la eegaya oo haddana iska aanan waxba ogeyn iska socda iska hadaaqaaya qof 24 saac afkiisii aan kontarooleynin aan camalkiisii iyo gacmihiisii aan uusan kontarooleynin lugtiisa halka uu dhigay uusan kontarooleynin halkaana la saaran yahay malaa'igtu saaran tahay walaalayaal xubnihii badnaa aynu soo sheegnay iyo 360 xubnood ee jirkeenna intuba ilaahay wuxuu noo siiyey inaan ku intifaacno waxa maanta halkaan idin keenay ee lugaha aad isu daba dhigteen ya waxa weeyaan iraado ilaahay awood ilaahay weeyaan awooddiina kuma aydan imaanin inaad ku shukrisaan oo weliba aad eegtaan gabadha facaaga ah ama wiilka facaaga ah ee maanta isbitaalka jiifa oo aanan dhaqaaqi karin jecel in uu mar un gacantiisaas awood intay u yeelato uu wax ku qabsado wejiga uu ku dhaqdo uu nijaasada isaga dhaqo uu wax ku cuno gacantii ma dhaqaaqi karo afka wax loo gelin anfaleed baa ku suran annaga nimcadaanu ilaahayna siiyey nimcadan aad arkaysaan ee la leeyahay dhagaha wax ku maqla indhaha wax ku arka afkaa wax ku cuna lugaha ku socda jirkii waa ka caqliga ku fikir uu leeyahay intaas waa intii manaafacaadda adduunka laakiin walaalayaal waxaad ogaataan inaad tihiin dad qiimi badan intaasoo keliya xubnaha laydinma siinin intaana ku samaysta ogaadana waxay idinka yihiin ilaaliyaal bodyguard ayay idinka yihiin gabadheennay ogsoon maanta ama wiilkeennay ogsoon gacantaa uu wax ku cunaayo ee uu wax ku qabsanaayo ee uu dhaqdhaqaajinaayo in ay tahay camera ilaahay leeyahay midkeennee awood u leh maanta cameradaa horteeda intuu istaago inuu dharka iska dhigo inuu been sheego inuu shay xun sameeyo abadan qof awood u leh ma laha waa camerada adduunka maxay kaa qaadi kartaa camerada magacaaga iyo sawirkaagay faafinaysaa wax kale ay ku geysan kartaa ma laha laakiin ma ogsoon tahay adigoo dhan inaad tahay wada camera gacmaha inay markhaati kaa yihiin oo ay ku ilaalinayaan markii aad qaangaartay ee qalinka uu kugu bilowday ilaa iyo maalinka aad dhimanaysid gacmaha aad arkaysaan ee aad ku intifaacaysaan oo aydan u aabayeelaynin waa markhaati waxbay duubaayaan cameray duubaayaan weliba muuqaal keli maqal kelima ah waa maqal iyo muuqaal ogaada wallahi waa maqal iyo muuqaal waa lisoo maalinka qiyaamaha yani waxbaa yaala ilaah waana fadeexaynin teeda kale lugahaasna waa markhaati ogaada lugaha waa markhaati jirkaaga maqaarkaagan ilaahay kugu dahaaray ee aad dhaqaysid ee aad subkaysid ee ma aragtaa wax walba aad u bixisay iyadoona waa markhaati ilaahay wuxuu leeyahay marka qiyaamaha la tago alyawma nakhtimu calaa afwaahihim afkaanu xiraynaa maalinka qiyaama qofkan inuu hadlaa la doonayaa xaguu ka hadlaayaa wa tukallimunaa aydiihim gacmihii baa hadlaaya maxay kula tahay gacmuhu inay sheegayaan gacmahaaga intii aad noolee 70 sano intee meel bay soo taabteen gacmahaaga ilaahay hana asturo ilaahay hana asturo waxaad u malaysaan ilaahay baa idinku dhaarshay 20 sano ee waddankeena aan ka maqneen ninka qoriga siday ee aan diin aqoonin ehel aqoonin islaamnimo aqoonin ee intaa dhig daadinayay gacmihiisu maxay sheegayaan inay kula tahay cajiib way soo maha marka walaalayaal gacmaha iyo jirka waxaasoo dhan waxa weeyaan markhaati bay naga yihiin weliba maalinka qiyaamaha markii la tago oo afkii inta la xiro gacmuhu hadlaan lugihiina markhaati yacni gacmuhu waxay sheegayaan wax qofkan uu ku halaagsamaayo oo ku tuurayo jahannama forever weligii marka qofkan in la halaaga oo jahannamo uu ku halaagsamo lama rabo lama doonaayo ilaa markhaati ilaa bilxija markaasaa la leeyahay war waxaad sheegaysaan waa arrin waaweyn yaa markhaati idinkaga ah markaasay leeyihiin lugihii watashhadu arjuluhum bima kaanuu yaksibuun lugihii baa markhaati ah marka maxaa lagaa rabaa maanta laga bilaaba in aad ilaalisid maxay gacmahaaga inaad ilaalisid almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadihi yani axaadiista aayadaha kulli waa wada naqaana aan sheegaya laakiin tadabbur baa loo baahan yahay in aayadaha laga fiirsada in la kor istaaga aayadaha
qofka muslimka ah waa kan muslimiinta kale ay ka nabadgalaan maxay carabkiisa iyo gacantiisa ay ka nabadgalaan maxaa wacay waxaana maalinka qiyaamaha ku fadeexaynayo ku sheegaya waliba maalinkaas waa maalin loo baahan yahay maxay xasanaad badan loo baahan yahay waa maalin calaacal uusan waxba taraynin waa maalin waqtigii aad lumisay uusan ma aragtaa uu ku ciqaabayo saxaabi jaliil ah oo aan aad u jeclahay oo la yidhahda cabdullahi ibni mascuud ayaa daa'iman radia allahu canhu ayaa wuxuu ka calaacali jiray waktiga daqiiqad inay ka lunto ma aanu rabi jirin dhalinyaradeenna iyo haweenkeena waxaan rabnaa saxaabada marka laga sheekaynaya runtii saxaabada inay bartaan annaga ma lihin yani john paul iyo margaret waxaas ma soo qaadana tusaalena kuma waxaa tusaale inoo ah qudwa xasana inoo ah inaga badbadan dhalinteena inay barata loo baahan yahay waa saxaabadeenii ridwaan ullahi calayhim waa dadka la leeyahay ku dayda waa xidigahaas oo kale kaad ku dayataanba wuxuu idin yahay ma aragtaa ku dayasho wanaagsan cabdullahi ibni mascuud radia allahu canhu ayaa runtii ninkaas nin miisaan badan ma aanu ahayn nin caata ayuu ahaa maalin buu geed fuulayey geedkii uu fuulayey ayaa lugihiisii ayaa feedmay halkaa dhudhumada ah aad bay runtii u yaryaraayeen wuuna caato ahaa saxaabadii baa markay arkeen bay ku qosqosleen lugaha dhuudhuuban ee ibni mascuud wallahi intuu dhaartay rasuulka ayaa wuxuu yidhi lugihiisaas yar midood haddii la saaro miisaanka aakhiro haddii la saaro buurtaa uxud way ka culays badan tahay qofka maxaa lagu qiimeeyaa qofka waxaa lagu qiimeeyaa camalka lagu qiimeeyaa iyo iimaanka lagu qiimeeyaa laguma qiimeeyo jirka iyo lacagta waad ogsoon tihiin ilaahay inaanu eegeynin muuqaalka qofka iyo xoolihiisa ilaahay ma eego maxaa wax muuqaalkan ayaa ku siiyey isagaa ku siiyey muxuu ka eegayaa lacagtan isagaa ku siiyey berrin uu kaa qaadi kara waa imtixaan ilaahay ma eego ilaahay laakiin muxuu eegaa wuxuu eegaa qalbiyaalkiina iyo camalkiinu ilaahay eegayaa xadiis saxiixa qofka marka islaamka ah muslimka ah waxaa lagu qiimeeyaa waxa waaye quruxdiisa laguma qiimeeyo annaga laakiin fiiri labadii ilaahay uusan eegeynin ayaan waqtigeeni oo dhan siini oo aan ku beerdaraynaa ilaahan kugu dhaariyey dukaamada make upska markaa fiirisid iyo businesska markaa fiirisid waxa weeyaan xoolihii oo dhan yaa loo sameeyey haweenkaa loo sameeyey waxa waaye gabadhii wax kale kama fikirayso waxay ka fikiraysaa waqtigeedii oo dhan ay siinaysaa ama meysaskeedii guryaheedii buuxa waa un jirkeeda wixii ay saari lahayd waxaasoo dhanna waxa weeyaan ilaahay ma eegayo waadna ogsoon tahay gabar yahay addoontii allahi maalinka aad dhimatid wixii aad ku tacbi jirtay ee xoolahaagii oo dhan aad ku bixisay dhar iyo wixii oo dhan iyo dahab way ka haraayaan jirkaagan aad sii qurxisay aad sii buurisay ama wiilku uu ma aragtaa siduu jim iyo balaay u ciyaarayay isdaaxuurinaya murqaha waaweyn habeenka ugu horeeya yaa lagu sooriyeynayaa aboor baa iskale adigu waxba kuma lihid that's why aan u leeyahay ilaahay ma eegayo habeenka ugu horeyba aboor baa cunaya wax kasoo qaad ma laha muxuu ku qiimo yeeshay marka qofka muslimka cabdullaahi ibni mascuud lugtiisa ay qiimo ku yeelatay waa camalka waqtigiisana aad u ilaalin jiray isagaa wuxuu leeyahay wallahi uu dhaaranayaa anigu noo sheegayaa wallahi ma nadimtu calaa shayin kanadamii calaa yawmin garabat shamsuhu qalla fiihi ajalii walam yazid fiihi camalii ya salaam wallahi dhaar buu marayaa isagoona dhaar u baahneen ibni mascuud wuxuu leeyahay radia allahu canhu wallahi ugama aanan shallaynin weligay sidaan uga shallaayay daqiiqad yar oo i dhaaftay yacni maalin gabalkiisu dhacay cimrigaygiina uu soo yaraaday oo aanan ilaahay agtiisa camal fiican aanan u kororsanin yacni daqiiqad i dhaaftay daqiiqadaas haddaysan camal fiican haddaanan samaynin ilaa daqiiqadaha maogta waa cimrigeena way soo maha annaga maxaan ka samaysannahay waxaan ka samaysanahay daqiiqado waxaan ka samaysanahay saacado maalmo usbuucyo bilooyin sanooyin intaas weeyaan jirkeena waxaasuu ka kooban yahay waa cimrigeeni waqtigaan ku ciyaarayna waa cimrigeeni baan cunaynaa qofki inuu qormayo soo ma aadan arag wiilkii yaraa ee dhalinyarada ah ee qurxoonaa dhabanada ku kuusnaa waa kan xoogaa kadib waaba isagoo soo yara ma aragtaa jirkuu soo yar adkaanayo waa ka isagoo soo yar ceraysanayo waa ka isagoo soo ninkii dhan yacni maxaa qoray ninkan waktigaa qoraaya 5 sano ka hor dhalinyarada aan isnaqaanay maanta waa anaa la yaaban muuqaalkooda iyaguna way ila yaaban yihiin war maxaana helay maxaana bedelay
daqiiqadaha iyo saacadaha waa kuwa aan luminayno weeyaan. waqtigu wuu ku qorayaa, maxaad u qori laadahay adiga? maxaad u qori laadahay? inaad qortid baa loo baahan yahay inta adiga aysan ku qorin. ayib, cabdullahi ibn mascuud marka wuxuu leeyahay daqiiqadaa i dhaaftay ee cimrigayga ka go-an haddaanan ilaahay xaggii aanan u soconin, camal fiican aanan ma aragtaa ee aanan samaysanin, waatan aan ka shallaayuu leeyahay. waana runo wallahi ninka adduunkan daqiiqad dhaaftay ka shallaaya waa ninka badbaadaya maalinka qiyaamaha ah. laakiin ninka aanan ogeyn saacadaha dhaafay, daqiiqada kuma xisaabtamayna, saacadaha dhaafay, maalmaha dhaafay, usbuucyada, bilooyinka, sanooyinka, qofka aanan ogeyn waa kan maalinka qiyaamaha khasaaraya, waa kan maalinka qiyaamaha ma aragtaa shallaynaya, maalin shallay uusan waxba taraynin. walaalayaal, cabdullaahi bin mascuud markuu sidaa yidhi, teeda kale waxaad ogaataan, waa walboo noo dhashaa wuu nala hadlaa. soo idinma oran insaan waxaan nahay qiimi badan markuu ilaahay nagu qalabeeyey xubnahan qiimiga badan oo midoodna aynan siisanaynin adduunka iyo waxa saaran. qofkeenna ma ogola il ha lagaa rido ha lagu siiyo islii oo dhan oo dahab ah ishaada ku bedelo, wallahi inayna ogolayn. nin baa ayaan dhexdaasa wuxuu yiri wiil baa u dhashay 3 jir isagoo ah, dhagoolanimo ku dhashay. markaasaa qaahiro igala soo hadlay, wuxuu yiri iisoo raadi qawqacada, yani bahaliya oo dhegta la geliy. wiilka dhagooli wax ma maqlaayo, dheg iisoo raadi. dhakhaatiir badan baa maray, dhegta oo weliba lafta la qalayo oo wax la gelinayo oo sidii la rabin uusan u maqlaynin, mar walbana laga yaabo in la bedelo, ayaa waxaa la yidhi taqriiban $70,000 $60,000 ama $65,000. yani fiiri dhegaha qiimigooda markaasaad garanaysaa. dhegaha ilaahay bilaash buu kuu siiyey, indhahaas bilaash buu wax walba uu kuu siiyey. keliya maxaa lagu yidhi inaad wax ku maqashid iyo inaad wax ku aragtid? maya, xaqa inaad ku aragtid, xaqa inaad ku maqashid, xaqa inaad ku weelaysid. rasuulku wuxuu leeyahay attaqwa haahunaa. cayaar cayaar ma aha xubnaha idinku jiro walaalayaal, ee aad ka faa'iidaysan laadihiin intiina badan ilaa man raxim. attaqwa haahunaa. maalinka qiyaamahan waad ogsoontihin yaa badbaadaaya. yawma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim. maalin xoolaha aan waqtigeena ku dhuminay aysan anficaynin, awlaad aysanna anficaynin, yaana anfacaya? waxaana anfacaya waa qalbi saliim ah inaan la tagno. qalbi ilaahay yaqaana. waa maxay qalbi saliim ah? waa qalbi ilaahay yaqaana, waa qalbi adduunkan waqtigiisii ka faa'iidaystay, waa qalbi daa'iman xusuusan qiyaamaha xusuusan weeyaan. raaliga aada codka haddaan idinku dheereeyey, soo ma idan garan walaalayaal. maalinku wuu hadlaa, wuxuu yidhaahdaa ya bna aadam ana khalqun jadiid. waa walboo berya, ya bna aadam ana khalqun jadiid وعلى عملك شهيد فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. ilmihii aadamow anigu khalqi cusub baan ahay, waa walboo dhashay ogaada, khalqi cusub ayaan ahay anigu. isniintu waa maalin cusub, anigu isniin waa inoo isniin. isniintii hore iyo tan waxba nooma kala duwanaa, laakiin waxaad ogaataan waa walboo berya, maalin walboo cusub waa maalin cusub. waa khalqi ilaahay, maalmaha ilaahay baa abuuray. waa anagoo kale, anaa khalqun jadiid, haddaan imid ilaahay agtiisaana ka imid. anaa khalqun jadiid. oo maxaad u timid? isniin yahay maxaad u timid? arbaco yahay maxaad u timid? jimco yahay maxaad u timid? wa calaa camalika shahiid. wax aad samaynaysid ayaan eegayaa. fiiri, hadda xubnaha ku ilaalinayay soo ma ahayn? indhaha ku ilaalinayay, maqaarkaa ku ilaalinayay, gacmihii baa ku ilaalinayay. maalinkiina waa kana. bal fiiri inta ilaalay ina saaran, midkeena ka warqaba. maalinku waa 24 saac. saacadda ugu horeysa ilaa saacadda ugu dambaysa waxay ku leedahay wa calaa camalika shahiid. afkaaga wax ka soo baxa, xubnahaaga waxa ay qabtaanaan eegayaa. faqtanimnii, iga faa'iidaysta. iga faa'iidaysta waa maxay? 24 saaci maanta wax wanaagsan sameeya.
cimrigiina bay ka go-an tahay wax aakhira aad ku badbaadaan jannadii idin geeya ilaahay idinku jeclaada ay samaysta 24 saacad ugu dambaysa marka cimrigayga maalinka cimrigiisu 24 saac daqiiqad ugu dambaysa waxay leedahay waan tagayaa xagee u tagaysaa ilaahay agtiisay tagaysaa fa inni la a'uudu ila yawm alqiyamah ila maalinka qiyaamahana ma soo laabanayay shalay way baxday wixii aan sameeynay oo dhanna way la baxday ogaada boorsada u furan subaxii markaad soo kacdid wax walbo aad sheegtid ilaa iyo waqti ugu dambeeya halkaasay ku ridatay xumaan iyo samaan boorsadii bay xiratay ilaahay agtiisay tagtay keen ugu yar maanta wuxuu jiraa 16 sano 17 sano qalinka 2 sano ama 3 sano ku socday imisa maalin weeyaan marka ilaahay aan ku dhaariyay imisa maalin baa boorsadu xirxiran yihiin ma se ogsoon tahay saaka subaxii saacadii ugu horeysay aad soo kacday hadaladii aad tiri maanta ma ogsoon tahay wixii ahaayeen ilaahay raali ma ka aha mise kama aanu ahayn ma tahay wax jannadii ku geynaya mise wax cadaab ku geynayo weeyaan shalay iska badaaba keenay xusuusa shalay wuxuu ku hadaaqay oo uu yiri cagtaadu meesha ay martay gacantaadu waxay taabatay shalay ma ogsoonid iskaba dhaafsanooyin yawma yab'athuhum Allahu jamii'an fayunabbi'uhum bima 'amiluu ahsaahu Allahu wa nasuuhu Allah maalinka khalaa'iqdo dhan laysu keena oo ilaahay uu sheegay qofkii wixii uu sameeyay ilaahay baan xusuusinay noo sheegaya ilaahay wuu koobay maalinka qalinka uu kugu bilowday ilaa ay maalinka aad dhimatay ilaahay wuu koobay acmaashaadii iyagiina way halmaameen warsoomeyna halmaameen shalay wixii aanu sameynay darad miyaan xusuusanaa sanad ka hor iska badaaba maadaama halmaankeenu dhow yahay insaan aanu nahay maxaa loo baahan yahay kulli waa ilaaweyna ilaahay agtiisana lagama ilaawaaye in aan controlno waa maxay afkeena waxa ka soo baxaya isheena waxa ay arkaysa dhegteena waxa ay maqlaysa gacmuhu waxay qabanayaan luguhu waxay qabanayaan inaan controlna loo baahan yahay Soomaa walaalayaal waqtiga waa qiimo badan yahay waqtiga ilaahayna siiyay horta aan ku mahadino waqtigana aynu ka faa'iideysano laakiin si uga faa'iideysanayna waqtiga waxaad ogaataan ibn al-qayyim rahimahullah wuxuu leeyahay daaraha ilaahay wuxuu ka yeelay saddex دار الدنيا ودار البرزخ ودار القيامة دارها واسدح توبتن كحكتا ويكسي دارتها ولا ليال دارتن الدنيا دا أقولو والله بسع يعني إذا لبضنان والله بسع والله واكيرتها ولبا يا داره واسدح دارت الدنيا أقوير وساعد أما الله بسع وحاكو حكتا دارته دار البرزخ أنا مركب فيري waxaan daartaan waxna loo keenay waa maxay saacadii 2 saac waxay noqotaba in aan abuurano caafimaad beerta aan abuurano xageen ku goosanayna qiyaamo ku goosanayna waliba qabriga ugu horeeyo ku goosanayna nabiyullaahi aadam oo waaga dhintay calayhi salaam illa iyo hadda qabrigu ku jiraa daartu waa dhar badan tahay laakiin arki maysid qof nool waagi nabiyullaahi aadam illa ay maanta nool ma laha so barzakh way ka dheertahay tan wa min waraa'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun illa darkiisu waa inta ilaahay baan ku dhaariyay daarta barzakha maanta yaa ka warramo dhalinyaradeenu samiyay ka sheekaysataa dadkan waqtiga dayacaya dhalinyarado kaliya ma aha annagoo dhanba masaajidadan ku tukanayna marka waqtiga la adimo waxa way sidii waxaan ugu urureena ma aragtaa geel ooman waanu tagnay markaan ka soo baxnaa waad aragteen masaajidada haweenkii ma mari karaan baabuurtii ma mari karaan waxa zaxma masaajidada hortooda waad aragtaan halkaas la wada taagan yahay war maxaa loo taagan yahay casr baa la sugayaa imisa saac baa u dhaxaysa duurkii casrka iyo maghribka intaasoo saac maxaa waqtiga loo dhuminayaa ma la shaqeeyo ma aakhir loo shaqeeyo inta haddana wax kale lama sheegayo wax afkaaga ka soo baxayana waxa waa ilaahay baa og xaaladooda waqtiga walaalayaal aad buu muhiim u yahay labadan saac ee adduunka aynu joogno ayaa waxaa loo baahan yahay in aan investment ku sameeyno in aan badino inay nooga khayr badnaato yani cimrigaagan yar ee saacadaha kumanaan sano oo maalinka qiyaamaha aad guratid tada kale adduunkan ilaahay baa ku diyaariyay waad ogsoontihiin gidigiin fadhigan maanta aad fadhidaan ilaahay baa idin diyaariyay waagi urka hooyadiina aad ku jirteen 4 bilood ayaa leedin qoray wixii aad cuni lahaydeen ogaadata wixii aad cabi lahaydeen meeshaad cagdhigi lahaydeen hawada aad aragtaan wixii aad ku lahaydeen aad oksijiinta ka qaadan lahaydeen ha isku dilina ayaa la yiri yaa loo ordin
kitaabada ilaahay soo dejiyo dhan meel walbo aad eegtid adduunka u ordo kuma taalla. ilaahay wuxuu leeyahay famshuu fi manaakibiha, warkaadsada huduu si tartiib ah asbaabta un la imaada. ma aragtaa ilaahay baa idin diyaariyey socda daafaheeda socda oo tallaabada qaada. war maxaa adduunka marka laisugu dilaayaa? adduun inaan isku dilna maaha. ilaahay baa tan qaadi maysid orod walbo aad orodid, wax walbo aad jamcisid, wallahi inaadan ka qaadaynin wixii ilaahay ku qoray maahane. qofna nafsadna ma dhimanayso ilaa ay kaamil noqoto oo ay qaadato oo ay buuxsato oo ay wada cunto waxii loo qoray, hawadii loo qoray, biyihii loo qoray, ilaa ay qaadato. wallahi inaanay adduun ka tegaynin. maxaan u ordaynaa? maxaan ilaahay uga fogaanaynaa? laakiin halka loo ordayay ee aan lagu diyaarinin waa halkee? aakhiro weeyaan. la socda aakhiro diyaar idin ma aha. aakhiro lidinma ballan qaadin, aakhiro lidinma diyaarinin. aakhiro biyo aad cabtid kuuma yaal. wallahi inaanay biyo kuu jirin, guri kuu jirin, geed kuu jirin ilaa adduunkan wixii adigu aad samaysatid maahane. cimriga maxaa lagu siiyey? caafimaadka lagu siiyey, xubnaha lagu siiyey, caqliga iyo maaragtaa indhaha iyo dhegaha, wixii oo dhan maxaa laisugu kaa rakibay mataqaanaan? inaad halkaa u shaqaysatid weeyaan. ilaahay markuu ka warramay aakhiro fiiri, fastabiqu lkhayraat wasaaricuu ilaa magfirati min rabbikum, wasaaricuu fastabiqu lkhayraat falyatanafasi lmutanaafisuun. daa'iman dhaqtan ayaa laga cabiraa. aabbaha inaad ka badisid baa lagaa rabaa. aakhiro maxaa la fiiriyaa? qofka kaa sarreeyaa la fiiriyaa. qofka kaa orod badan ee aakhiro kaaga orod badan, kaa salaad badan, kaa cibaado badan, waktiga ka faa'iidaysanaya, kaasaa la eegaa. laakiin adduunka ninka kaa hooseeya la fiiriyaa, si wax aad haysatid aad ugu qanacdid. walaalayaal, abu dardaa saxaabiga jaliilka ah radia allahu canhu, waa saxaabigii labaad. maalin buu kacbada yimid isagii iyo saxaabadiisii. markaasaa wuxuu yidhi, intuu kacbada sidaa u fiiriyey ayuu iska ilmeeyey abu darda radia allahu canhu. markaasaa wuxuu yidhi, dad yahow, marka aad safraysaan, adduunka aad u safraysaan, aad gobollada isaga kala gooshaysaan, soo masahay qaadataan? waxay yidhaahdeen haa abu darda. wuxuu yihi, fasafaru laakhirati abcadu mima tusaafiruun. daa'iman saxaabadu waxay ahaayeen dad xusuusiya aakhiro, dad xusuusiya ilaahay, dad xusuusiya gurigeeni miicaadka ah ee runta ahaa. adduunyadu kuma degdegi jirin, waa 2 saac waa laga tagayaa adduunkan. wuxuu yihi safarka aakhiro ayaa ka dherer badan. ilahay baa idinku dhaariyey safarka aakhiro, wallahi waa dherer badan yahay. nabiyullaahi aadam weli ma aanu gaarin, waa uu sugayaa weli. annaga maxaad u malaysaa? adduunkan waa la marayaa. addunyaa daaru mamarin waalaakhiratu daaru maqarin. aakhiratii nagaanshaha taa weeyaan. ma nasanayna oo daalku naga bi'i mayo ilaa aakhiro aan cagaha saarno. adduunkan waa la marayaa, horteenna waa la soo maray. dadkii wanaagsanaa ee saxaabadii salafkeenii saalixa ahaa inaan ku dayano weeyaan. maanta meel fiican bay ku sugan yihiin, inaan ku dayanaa loo baahan yahay. dad baa qudwo inoo ah, hogaamiyaal inoo ah. safarka aakhiro ayaa ka dherer badan, wallahi saa ka dherer badan. maanta dhalinyaradeennu kama sheekaystaan daartaan oo barzakha kama sheekaystaan. ma ogsoontihiin barzakha walaalayaal wuxuu yahay? saacadda sakaraadka uuna qabto ee adduunka inooga dhammaato, malaa'igtu ay soo weydo mika-il uu soo waayo, malakul irsaaq uu soo waayo neeftii aanu neefsan lahayn. meel walba intuu maruu leeyahay maanta waa kuu soo waayay oxygiinta. waa hawadan iska maaragtaa dee openka ah ayaa waxaa lagaaga soo waayey wixii aad qaadan lahayd, neefsi aad neefsan lahayd. maxaa wacay? wax xadidan baad ku leedahay, ogow. tallaabadaadii wuu ku soo waayey. kuuma qorna lawxul maxfuud inaad dhulka caga dhigtid. cagtaada cid walboo qaado, wallahi dhulka inaanay saari karin. sariir baad ku urursatay, jidinkaa waxaad marisid lama hayo. maalinkaas adduunka aad ka tegaysid miyaanu isaga sheekaynaa? maxaana qabsanaya? taransidka aanu marayna ilaa iyo qiyaamaha miyaan isaga sheekaynaa? ilmaheenna miyaan uga sheekaynaa? waa may ugama sheekayna. maxaa wacay? waalidiintiiba kuma baraarugsana. dadkii oo dhan adduun ma aragtaa ilaahay u ballan qaaday bay ma aragtaa wayba ka orodbadiyeenba ilaahay. waktigaas inaan dadka uga sheekayno, dhalinyarada qalbigooda inaan ku abuurnaan rabnaa. aakhiro rasuulku wuxuu leeyahay, ilaawina haadimi ladhaat, isaga sheekeeya. akhiruu min dikri haadimi ladhaat almowt. war ninkaa isagaa isaga sheekeeya. ninkaa isagaa walaalayaal inaan barano,
oo aan la saaxiibno daa'iman carabkeena uu ku badbato ayaanu doonaynaa si nolosheena ay u fiicnaato. wallahi maalinkaas markaan ka tagna adduunka meesha kale nala dhigayo waa halkee sakaraadka. walaalayaal raallina ahaada runtii waqtigan sakaraadka inaan ka sheekeeyana uma baahni, laakiin waxa weeyaan sakaraadka walaalayaal waa laxda qof walba oo insaan ah oo ilaahay abuuray nafsad geliyey sugaysa weeyaan. rasuulkeena suuban waad ogsoontiin salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi oo cimrigii dembigiisii hore iyo kii dambe la dhaafay sala allahu calayhi wasalam. waad ogsoontiin walaalayaal waqti qabow ah ayaa laga qaaday ruuxda oo ilaahiisa loo qaaday. caaisha radia allahu canha ku haysay laabta, halkaa laabta ayay ku haysay. caaisha waxay leedahay waan hayn kari waaye rasuulkeena suuban, kulaylkiisii waan hayn waaye. wuu dhididayaa rasuulkeena suuban sala allahu calayhi wasalam. dhidid baa ka socda, biyaa loo keenay, biyahaasuu gacanta ku qaadaya oo uu isku qaboojinaya sala allahu calayhi wasalam. markaasuu dhawaaqaya, ilaahay buu baryaaya oo uu leeyahay subxaana allah subxaana allah ina lilmowti sakaraat. ilaahay baa nasahan, ilaahay baan sakaraad qabanin, ilaahay baa xanuun qabanin, ilaahay baa xumiyo dhan ka nasahan. mowdku wuxuu leeyahay kulayl, mowdku wuxuu leeyahay culays, mowdku wuxuu leeyahay qabqabasho. ya allahuma hawin calaya sakaraati lmowt. rasuulkaa ilmaynaya, rasuulkaa kulul, rasuulkaa biyo wejiga ku masaxanaya, waa khayru khalqi illaah. annaga maxaad moodaan walaalayaal oo adduunka ku badinay xumaan oo waqtigeennii dayacnay ra-sumaalkii ilaahayna siiyey 80 sana 90 sana aan ma aragtaa wax walbo xaaraan xumaan iyo xalaal aan ururinay oo wax walba aan ku hadalnay lugteeni meesha aan dhigayna ayna u kala aabiyeelin. maxaad u malaynaysaa wax laxdadaas waa laxda qof walba sugaysaa, qof walba inuu u sahay qaataa marka loo baahan yahay. maadaama ilaahay uu saacadaas leeyahay qof walba wuu marayaa oo nafsada laga qaadayaa, sakaraadkaas wuu qabanayaa. wuxuu ku siiyey ka hor intaanay ku imaanin cimrigan dherarka badan buu ku siiyey, caafimaadkan buu ku siiyey inaad sahay soo qaadatid. watazawadu faina khayra zaad attaqwa. tanna anfacaysa taas weeyaan. sahayda ma aha hilib aan qaadanna ma aha, waa loo baahan yahay aakhiro hilib waa loo baahan yahay. oo qabrigaa inta aad ku jiraysid waxaad cuntaad u baahan tahay. wallahi waxaad u baahan tahay dhar aad xerataan waad u baahan tihiin. ogaada qabriga waad ugu baahan tihiin. waxaad u baahan tihiin waxaad cuntaan baad u baahan tihiin qabriga dhexdiisa. waxaad cabtaan baad u baahan tihiin qabriga dhexdiisa. gogol baad u baahan tihiin qurux badan oo xariir oo aad ku raaxaysataan baad u baahan tihiin. waxyaabo madadaalaad u baahan tihiin. laakiin ma aha gaarisiloojka ma qaadanayna. ogaada ya waxa qabriga looga baahan yahay inta ma aha. daar walbaa dhaqan bay leedahay, daar walbaa sifo ayay leedahay. adduunka sifadiisa waa sifadan aan ku noolnahay, laakiin aakhiro waxyaabo badan oo u baahannahay. waa maxay? camalka wanaagsan weeyaan. ilaa man ata allaha biqalbin والباقيات الصالحات وياه. هذا المعان بعض أبها مسلم باتا يا إخواني. هذا الدونك رسولك عليه الصلاة والسلام عليه هكذا جينا الدونك إلا إذا كو حسناتك أدعوني لهذين أباهن وتماهن سهيدنا قادة تبالو باهن ياهي ودكسونتي ودد دير ولا ليال نسويسا ودد دير وامحي مالك هويدين أين هذا الشيء أيام باللوني سفر كدار تآخره وقادا واسعنا قفل باو صعدا qof walba daqiiqada ku soo dhaafta ilaahay baa u sii dhawaanaysaa. qaarkeen wuu gaaray, qaarkeen wuu socdaa oo waa dhow yahay inuu gaaro u dhow yahay maanta. soo had garatay ma teeda kale safarkaas daarta aakhiro ninka ka qaadaya qof walba maalin ba irida loo soo garaacaya. qalbigeena yaanu marnaba ka bixin. akthiru min dhikri hadim alladhat, akthiru min dhikri hadim alladhat. marnaba qalbigeena walaalyaane ka bixin. qalbigaaga saacad walbo aad soo kacdid, mar walbo aad dhaqaaqdid, aad fariisatid, aad istaagtid, in malaku daba joogo marun aad dhimanaysid. qalbigaaga haddaad gelisaan oo raasiq ay ku noqoto aad xusuusataan, wallahi afkiinu wax xumaana inaanay ka soo bixin, gacantiinu waxun qabanayn, ishiinu waxun fiirinayn, dhegtiinu waxun idinku maqlinin. maxaa wacay qalbigaaga qoyan qiyaamaad ka fikiraysaa marka iyada ah. dada kale malaga malakul mawt markuu irida kuu soo garaaco uu ku yimaado, hadda keena diyaar waa ilaahay baa idinku dhaariyey. midkeena wallahi diyaar inaanu ahayn abadan. qof diyaar u ah anigana allah ka dhigo wallahi inaanu jirin. laakiin waxa waay ilaahay wanaag baan ka rajaynaynaa. ilaahay ma aragtaa waxaan ka rajaynaynaa dambi dhaaf aan ka rajaynaynaa. aakhirana camal wanaagsan baan ka rajaynaynaa. laakiin
baska markuu guriga kuusoo istaagay iridiisa baska waxaa la yidhaahdaa almowt magaalo iyo magaalo markaa u safraysid bas baa la raacaa soo maha waxaa la raacaa diyaarad waxaa la raacaa markab taran ayaa la raacaa laakiin aakhir intaasba looma raacay baska waxaa la yidhaahdaa almowt waxa darawal ka ah yaa waay malakulmowt halkuu ku soconayaa wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yubcathuun wadadaa dherarka badan ayuu ku soconayaa walaalayaal safarkaas waa safar dhirir badan waa safar haddaad isla gashaan hooyadii ku dhashay adduunka ku koolkoolin jirtay madaxa ku saari jirtay wax walbaba ku huri jirtay hadday kula saaran tahay wallahi galaas biya inaanay ku siinaynin xaqiiqada ogaada iyadaa cunaysa oodkaceeda iyo doolshadeeda iyo xalwadeeda inta ay sidato wallahi keligeed baa cunaysa inayna kubi ku siinaynin qof walba inuu sahay qaataa loo baahan yahay tazawad liladi laa budda minhu فإن الموت ميقات العباد أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد أصحي قاضي كان لقى مارمانك قبري لقليا أصحي قاضي راليميات كتهي إن آد سفر لقشت أمت ألابطود أحر حرنتهي برسوين كود أبوحان وحل عبي وحل عنو أذوقون أصحي لآن تهي وركيني راليكو قفنا راليك معها ولا ليال مركان تجينا هالكان أن يوروب آذينا waad ogsoontihiin daa'iman waxa waaye waxaan weydiinaa transitka war diyaaraddu halkee bay transit ku tahay magaalo hebla meeqa saaca la joogayaa wallahi 3 saac 4 saac ma rabti 3 saac 4 saac yani dhibkaas yaraa diidaysaa war tanba waa weydiinaa oo transitka dhawaan weydiinaaye waa adduunyadii yareed ee hawadu furneed ee aad lacag siditay aad meel walba lacagta dhigi kartay war aakhiro oo aan u soconno oo safarka dhabta ah maxaan transitkeeda u weydiin laanahay maxaan u weydiin laanahay halka aan marayno انت ما حتى انسي مرينا مع ويدين لا نهي والسكرات بان السقايا قبري بان السقايا سؤال بان السقايا منكر نكير وعن السقايا عذابك اما نعيمك جنة قبري بان السقايا والله صباح يا حساب محشرك بان السقايا ميزانك صراطك اما جنة واما النار فريق في الجنة وفريق في السعير انت صدقين لسيشك يا لو باهيا بلاش الهي وحوليه افحسبتم انما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون ومن ديل إذن أبورنا دمودي هدي إلهي ديل وكو أبوري لها إلهي وكان الزهاية هاي حدو كو أبوري لها ديل قلبي قلايا إنا نذي في السيدة لو باهي قلبي قاقا وحن إنا نقلين مرايدو كالويان وهلك أدون كان إلهي مخزن وكدقي وحاورنا لغو قريو مالك قيامها نسقو نظيفة كبت بهذه السدويان إيش هادو وحا أي أركتوه تنهوري أضاس كالواليري لكن مد لوادياله قلبي قلايا نوكسون تاري ما أنت مركان إردان كبحنا واسكفير فيرنا ميل والبا لكن إيش وحي قبنا يسوى كامير ويدوب يساعجلك هلكا سال الروائن الإلالية دكت هذا واحد مغلي سدو حال هذا أنه محفظنا أي واسكد يسنا هيسك واحد ديما مرها واسكد يستي دكت ما هو اسكد يستي قلبي وقود بايا آخرين واحد بدبايا إلا من أتى الله بقلب سليم قلبي قيمي بدن بات سيدتان ولا ليال قلبي إنت كفا إذي ستان كلن كان وكلن كيني وريي كل مو بدن واسوق إيمان دونا هدو إلهي إدمو waxaan kusoo gabagabeynayaa luqmaanul xakiim daa'iman meelaha majaalista sidaan oo kale ah muxaadarooyinka ka socdaan maqdee dadka waa wanaagsan saalixiinta la soco meelaha kitaabada laga akhrinayo goobaha ilaahay beedadka ilaahay meelaha culimada daa'iman ha ka fogaanin jilbaha waa inaad la gashaa buu leeyahay wiilkiisu la dardaarmaya annagana wuu nala dardaarmaya hooyada waa inay ku tiraahdaa wiilkaygiiyo culimada ha ka fogaanin maxaa wacay muxuu ku cileeyay fa inna allaha يحيي القلوب بكلماتهم قلبي يذا إلهي وحكونا ولا وهذا العلماء دائما ودح ليس قلبك صوماها كلا بل رانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون إلهي وحنو شيء قلبي إن يدح ليستان حاول عيش وحي أركت قلبي وقد بني وين نكتم ذوبا كل عيسى نكتم وحي مغشه نكتم ذوب إن مساحة دول روا حتى غافل آتى وآد هالمانتد أو مانتو دن وقتي كرافي آذن أوجين أو وحي دن بأمارته ومذوبانا يا هدو مذوب هذا واحد مغليس الملء حراش وكو حاران تنوكو حلال وحول بيعن وكل وقت مركو حيري قلبي يلا وحن ولايا وكلمات كعلماء وهذا اللذوذ وفردي جوذا بل علماء قالوا حيري هذا فيرين تقفك عالمك وجهي سلفيري وعباده مركو وجهي شيطانك ويهي مع السئيتاي إلهي قلبي يدو وحوقنا ولايا سيدا روبك وقلنا ولايا دولك روبك وارك دولك مركو أباريها مركو سودكو دولك ودن سيدو نقنايا وشنقرايا وفرحايا ودلدلاعيا بيه باقلايا مركي وحصور دلنا واركين سيدا سوكالي ولا ليالو حدو كل دردار مايا
culimmada inaydan ka fogaanin goobaha ilaahay inaydan ka fogaanin daa'iman dadka wanaagsan inaad dheehdaan maxaa wacay kuwaasaa laga yaabaa jameecadaas wanaagsan ee solaxada aad dhehdeen darteed dembigiina ilaahay inuu ku hoobiyo in maaragtaa uu ilaahay ku islaaxiyo teeda kale safar ugu dambeeyo hadda denmark aan tegay wallaahi uma wallahi dhalinyarada badbaaday ya maxamed wuu inooga sheekayn doonaaye dhalinyarada badbaaday waxa weeyaan dhalinyarada ku xiran goobaha ilaahay masaajidada inta aan masaajidada ku xirnayn khadkay ka baxeen walaalayaal intaasaan kusoo gabagabeynayaa hadduu ilaahay yiraahdo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته